ها magacayga saddexan waxa way farxiye aadan Cusmaan marka gabadhan 7 sano ayaa iga xanuunsan tahay oo dibkan qabta waxay aad oo caawi iyo wax muslimiin oo hadda ka hor arkay malaha guri yar oo gadoomaar aan ay ku jirtaa gadoomaari way furi 7 sano ay sidaa igu tahay meel aan la tagin iyo ciraash aan geynin iyo waxaan la marin malaha wixii muslimiin iyo wixii hay'ad iyo wixii wax igu tari kara inay wax igu soo taraanaan rabaa oo liisoo caawiya gabadha waa lagu dhacay quraanka lagu galay gabadha quraanka lagu galay gabadha ayuumanaas meeshii jin baa ka soo raacay quraankii ay ka gashay lambarkii ay ka gashay laga soo raacay madrasadii gabadha marka gabar waxay ahayd firfircoon iskuulkii lambar ay ka gashay madrasad lambar ay ka gashay dhibaatadaas iiga dhacday cid markay iimaanaysa gabadha marihii buugashii wixii quraan kitaabii ma arki kartaba xarunteeda waxa waay yani hadda ayada ku 8 aan haastaa iyo oday ku 10 kaar 10 laan leena wax kale oo soo galo malaha dhaqaale kale ma qabno waxaan haysana malaha sidaan daashkan ugu reereebay iga salax weydiisan lahay dhaqaale wixii ay heli karaan guri hadda ay dhisi karaan waxay ay heli karaan oo nolol ay waxay heli karaan inay isiyana weydiisan lahaa meel walba oo joogtaan xil walba idin tahay goob walba oo joogtaan aad ku cibaadaysan aad ku nooshihiin waxaad u jeedaan gabadha yartaha miskiintaha ay walaashiina xanuunsanaysa godadkaas iyo carradaas ayada qodatay muddo 7 sano ayay xanuunsan tahay oo dhimirka looga jira waxayna ku xanuunsatay oo laga soo raacay waa iska maqaadir rabbi oo rabbi subhanahu wa ta'ala ba u qadaray oo xagga qadarka laakiin waxa weeyaan asalkeedii waxa ka kacay inay gabadhani lambar galeysay xagga madrasada xagga maxaan ku dhahay quraanka lambar galeysay jibin ay ka soo raaceen haddana sidii ay ku xanuunsatay gabadh walaal ma sha Allah ahayd xanuunkana waa ku yimaaday hooyadeed waxa weeyaan 9 cunug bay haysataa Soomaaliin 9 cunug bay haysataa kaarmo wax kale ay ku nooshahay oo kale ma jirto Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa noolaysanaya godoomarkan ay ku jirtaa adur roosada biyaha gabadha u soo galayaan ayadoo ma dhaanto guri kale kuma jirto qof walba oo muxsin ah meel walba uu joogo iyo goob walba uu joogo iyo qaab walba oo wax u haysto waxaan ka codsanaynaa oo si naxariis leh oo islaamnimo aan uga codsanaynaa gabadhaas markuu arko uu daawado inuu jeebkiisa waxa ku jira inuu la soo wadaago hadduu 100 ku jiro 100 uu qaybiyo hadduu 50 ku jiro 50 uu qaybiyo qof walba muxsina waxaan kula dardaarmaynaa inuu gabadhaas guriga ka bedelo gabadhaas nolosheeda bedelo gabadhaas Ilaahay baa caafimaadka u haya Ilaahay baa caafimaadka u haya laakiin qof walba waxa weeyaan inuu horta meel wanaagsan uu ka soo tooso ayaa muhiim ah isaad u jeceshiin marka inaad meel wanaagsan ka soo toostaan in ay gabadhaasina meel wanaagsan ka soo toosto waxay ku xiran tahay inaan tan soo tagna aan wax urursano aan gabadhaas guri u dhisno nolosheeda aan wax ka bedelo qof walba muxsinana intaas aan kula dardaarmayaa waad maqlaysaan kulli waad maqli doontaan waadna maqli doontaan waana video waad arki doontaan insha Allah tabaaraka wa ta'ala waxaan isu rajaynaynaa inaan gabadhaas si naxariis leh aan wax ugu qabanno meel walba oo joognana insha Allah tabaaraka wa ta'ala lambarka idin yeedhisay iyo lambarka aad khadka ku arki doontaanba intaba aad ugu soo dirtaan insha Allah waxaan dareemeynaa haddii aad insha Allah aan nagala qayb qaadataan in aan video ku xiga in aad meel quman iyo meel qurux badan aad ku arki doontaan hada wa billahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh